Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin salaama meel kasta adduunka ka joogtiin kusoo dhawaada channelkayga Naima Cooking and Beauty. Asxaabtayda qaaliga ah maanta waxaa inoo hayaa jibsi masala oo aad ka heli doontiin si fudud oo samaysan kartid oo 5 daqiiqo ku samaysan kartid insha Allah. Casariyo fudud aad ka dhigi kartid ama quraac fudud wax ku fudud insha Allah. marka hadda waxaa idin tusi doonaa qaabka oo sameeyay ila socda insha Allah. asxaabtayda marka ugu horeyso birtaas oo saartay waa ujeedin wax yar saliid ah ku soo tasliyay saliid badan ma rabo hadda basasha ku soo shubaa ku dalcan lahaay basasha ku dalcaya ujeedin wax yar basasha shiileena kadib waxyaabaha kala kor uu soo dirsaneena. fadlan haddii aad nagu cusub tahayna waxaa idin rajayn doonaa inaad subscribe ii saari doontiin gambalaalkan oo ka dhigta asxaabtiina la sii share gareeyo wixii fikradeyna commentiina u reeb insha Allah. hadda waxaa idin tusi doonaa qaabka uu sameeyay marka basasha ku soo shubay ujeedin waa shiiloya marka basasha shiid kadib waxaa ku soo dareysaa shiid hal xabo shiid ah ku soo shubanaysa baradhada waxaa filayaa inay yar tahay baradhada way yartahay rubac le waaye rubaca waxa uu sameeyay aan kaliya samaysanayo dad badan uu talgalin marka dad badan uu talgashina basitid waaye daartid marka aan kaliya samaysanayo marka waxa isdhaa asxaabtaan la sii wadaag hal xabo shiid ah ku soo shubay waa ujeedin halkan shiid bisa u baahanahay kadib waxaa ku soo darsanaya wax yar huruud basbaas barbarooni shiidan toon kabsar caleen cusbo jubbo waxaas dhan oo soo shubaya wax yar markoo sidaan oo shiishmo waa kana oo ku soo wada daray oo ujeedin laakiin toonta iyo dhimaan toonta ku daray kabsar caleentana kor uu shubaya waa kana hada toonta soo qaada waa kana toonta wax yaris leeyahay inaa ka badiyo ma rabo waxayna noo soo carafta leeyahay marka intaan isku shiileena wax yaris biyo taas ku soo siinaa oo ku shiilmo shiishida karis badan ma rabto marka baradhadan waxaa soo sameynaysaa inta aadan dalcin ka hor waa soo dubaysaa baradhada sida jibsiga caadiga loo dubaa qof walba yaqaan wax yar biyo ku daro ujeedin oo inoo shiilmooya baradhada iyo suugada wax yar inay baradhada badnaata fiican xabadan shiishid bas marka sameynaysid waxaa rabtaa baradhada rubac iyo tuman aa soo dubtay si jibsiga caadiga loo dubo qof walba oo yaqaan saadin sheegay marka hadda ku soo darsaneena diyaar oo noo yahay baradhadana way soo duban tahay oo gudinaysa oo ku qasqasay kadib waa dejinaysaa la wuu yar yahay oo ujeedin baradhada wax yar leeyahay rubac waaye marka aad waxa ka dhiganaysaa rubac iyo tuman markaas uu ku filnaanaya bas diyaar oo noo yahay waa arkaysin insha Allah dhadhamiya tijaabiya insha Allah wallahi waa ka heli doontiin aad u macaan badan yahay anigana waa tijaabiya idinkana tijaabiya insha Allah qaabka uu soo baxay tusi doonaa waa kana asxaabtayda qaaliga ah sidaan quruxda badan oo ku soo baxay baradhadeeni waa ujeedin qaab qurux badan oo sameysmay dhanka ka sii daray insha Allah tijaabiya adaad ka bogateen commenti iyo soo reeba insha Allah dad ka heshaan oo soo tijaabisaan insha Allah inuu videoga xiga subscribe kan noo daawo gambalaalkan on ka dhiga insha Allah si aad u noqoto daawada ugu horeeya khayr badan.